jadeecada waa cudur aad u faafa laakiin laga hortagi karo. Jadeecadu oo uu keeno fayraska jadeecada waa mid ka mid ah cudurrada faafa ee ugu badan ee isla yaqaanaan bini'aadanka. Waxa isweydiin mudan, fayraska jadeecadu ma wuxuu ka badan yahay coronavirus? Jawaabtu waxay noqonaysaa dabcan haa. Taasina waxaa muujinayo estimated reproduction number-ka lagu qiyaaso cudurka faafidiisa. Measleska ama jadeecadu waa 12 to 18, halka COVID-19 uu yahay 2 to 3. Haddii aan si kale u dhigno, halka qof oo jadeeco qabo wuxuu u gudbin karaa ama awood u leeyahay in uu u faafiyo cudurka 12 ilaa 18 qofood, halka COVID-19 ama coronavirusna uu u gudbin karo 2 ilaa 3 qofood ayuu gaarsiin karaa. Taasina waxay muujinaysaa inuu aad ugu badan yahay dhanka faafidda. Inkasta oo horumaro la taaban kara laga sameeyey daawada iyo tallaalka, jadeecada ayaa weli sii wado in ay keento khataro caafimaad oo waaweyn oo bulshada ah, gaar ahaan goobaha leh tallaalka hooseeyo ama micnaha aan laga qaadan tallaal. Muuqaalkani waxaan ku sahmin doonaa nooca cudurka, qaabka gudbiskiisa ama uu u gudbo, calaamadaha, dhibaatooyinka ka dhalan kara, xeeladaha ka hortagga iyo muhiimadda ay leedahay in la joogteeyo qaadashada tallaalka heerka sare leh. Haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Qaabka uu u faafo. Jadeecada waxaa lagu kala qaadaa dhibcaha neefsashada oo loo yaqaano respiratory droplets. Marka qofka cudurka qabo uu qufaco ama hindiso, waxa afkiisa ka soo baxayo. Fayrasku wuxuu ku sii jiri karaa hawada ilaa 2 saacadood, taasoo ka dhigayso mid aad u fudud in lagu kala qaado goobaha ay dadku ku badan yihiin ama goobaha xiran. Astaamaha. Calaamadaha ugu horeeya ee jadeecada oo soo muuqda qiyaastii 10 ilaa 14 maalmood kadib marka uu qofku cudurka ku dhaco ama uu soo gaaro. Badanaa waxaa lagu qaldamaa in ay yihiin hergeb caadi ah. Calaamadaha waxaa ka mid ah qandho sare, qufac, diif iyo indho gaduudan oo biyo ka socdaan. Inta badan waxaa soo raaco soo muuqashada Coblentz spot, waa dhibco yaryar oo cad oo afka ka soo baxo ilaa 2 ilaa 3 maalmood kadib. Astaanta ugu badan ee lagu aqoonsan karo jadeecada waa finan gaduudan oo yaryar oo ka soo bilaabmo wejiga kadibna hoos ugu soo fido jirka intiisa kale. Finanku waxay caadi ahaan socon karaan ilaa 1 isbuuc. Dhibaatooyinka. Halka jadeecada inta badan ay u maleeyaan in ay tahay cudur caruureed, waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo halis ah carruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah caabuqyada dhagaha, shuban, oof-wareer iyo encephalitis oo loo yaqaano caabuqa ku dhaco maskaxda, taasoo keeni karto dhaawac joogto ah oo maskaxda ah. Xaaladaha qaarkood jadeecadu waxay keeni kartaa dhimasho, sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka WHO. Sanadkii 2018, jadeecadu ayaa sababtay in ka badan 140,000 oo dhimasho ah adduunka oo dhan. Inta badan waxay ahaayeen carruur da'doodu ka yar tahay 5 sano. Tallaalka. Habka ugu waxtarka badan ee looga hortagi karo jadeecada waa tallaalka. Tallaalka jadeecada waa mid aad waxtar u leh. 2 qiyaasood ama 2 doos ayaa bixin karo 97% difaac, halka 1 qiyaas uu bixiyo ilaa 93% difaac. Tallaalka waxaa sida caadiga ah lagu qaataa ama lagu bixiyaa 2 qiyaasood ama 2 doos. Kan koowaad inta u dhaxayso 12 ilaa 15 bilood da'da, kan labaadna inta u dhaxayso 4 ilaa 6 sano jir. Qaadashada tallaalka sare ayaa muhiim u ah difaaca bulshada. Tani waxay dhacdaa marka tiro badan oo dadweynaha ka mid ah la tallaalo, si loo helo difaac aan toos ahayn oo difaac ugu noqdo kuwa aan la tallaali karin, sida dhallaanka iyo shakhsiyaadka leh xaaladaha caafimaad qaarkood. Ahmiyadda ilaalinta tallaalka heerka sare leh. Inkasta oo la heli karo tallaal waxtar leh, jadeecada ayaa ah weli mid sii socoto. Faafitaanka waxaa inta badan loo aaneynayaa hoos u dhaca heerarka tallaalka, taas oo ay u wacan tahay ama ay sababeen labnaanta tallaalka iyo macluumaadka qaldan. Sanadihii la soo dhaafay, macluumaadka qaldan ee ku saabsan tallaalka, gaar ahaan sheegashada been abuurka ah ee ah in uu xiriir la leeyahay autism-ka, ayaa horseeday dib u soo kabashada cudurrada tallaalka looga hortagi jiray sida jadeecada. Si taas loola dagaallamo, saraakiisha caafimaadka dadweynaha iyo ururada sida WHO waxay xoogga saarayaan muhiimadda tallaalka. Waxay ka shaqeynayaan in ay bulshada ka wacyigeliyaan badbaadada iyo waxtarka tallaalka, ka hortagga macluumaadka qaldan iyo hirgelinta siyaasadaha lagu kordhinayo caymiska tallaalka. Tusaale ahaan, wadamada qaar ayaa soo saaray siyaasadaha tallaalka ee qasabka ah si kor loogu qaado qaadashada heerarka sare ee tallaalka. Dadaalada caalamiga ah iyo caqabadaha. Hindisaha caafimaadka caalamka waxay hiigsanayaan in ay meesha ka saaraan
ama sidii looga saari lahaa jadeecada iyada oo loo marayo ololayaal tallaal oo baahsan. Qorshaha tallaalka caalamiga ah ee WHO wuxuu bartilmaameedsanayaa ciribtirka jadeecada, iyadoo horumar la taaban karo laga sameeyey. Caqabado ayaa weli taagan, gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo, halkaas oo helitaanka tallaalada iyo kaabayaasha daryeelka caafimaadka ay xadidan yihiin. Xasilooni la'aanta siyaasadeed, iska hor imaadka, barakaca ayaa sidoo kale carqaladeyn karo barnaamijyada tallaalka oo keeni karo dillaaca jadeecada. Intaa waxaa dheer, gobollada qaarkood, caqiido dhaqameed, kalsooni darrada xarumaha caafimaadka ayaa carqalad ku ah dadaallada tallaalka. Wax ka qabashada caqabadahani waxay u baahan tahay habab dhinacyo badan leh oo ay ku jiraan hagaajinta kaabayaasha daryeelka caafimaadka, kordhinta helitaanka tallaalka, iyo kobcinta kalsoonida bulshada iyada oo loo marayo waxbarashada. Halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena. Waxaa inoo balan ciwaanka xiga hadduu Alla idmo. Khayr badan.